idoo uma maqna ceelna uma qodna alla mooyaane dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Gabiley ayaa ka deeriyay xaaladooda nololeed waqti lagu guda jiro jiilaal madaxii dadkani danyarta ah ee ka muuqata diibto oo ay qaarkood maskaxda ka jiran yihiin ayaa sheegay in aanay ka warhaynin maamulka degmadu ana waan gaalka ma kixi karayo tawadan ku siqay kolkan halkan imanayo qarqarka damban ku saasiqa ilaahay darti yana halka u taagan ilaahay darti dad mali dunya mali xoolo mali ma socon karayo ma toosay halka wata la soo dhigay la soo jiiday Raaxo Xuseen Roble oo ah haweeney indhala ayaa maamulka degmada ku eedeysay in ay gabi ahaanba maamulku iska iloobeen dadka danyarta ah ee ku dhaqan gudaha magaalada Gabiley sidoo kalena waxay baaq u dirtay madaxweynaha qaranka Soomaaliland waxa weeyaan dad waxa jira aan waxba haysan oo cidina ogeyn allaha boqor moojaan bili aadana aan ogeyn allaha boqor moojaan ayaa jirta waa dadkii aad ku faani jirtay waa dadka imiga doorashada ka sugi jirtay aad ka sugayso waa dadkii markii hore ku soo codeyn jiray waa dadkii heerka ku soo gaarsiiyay madaxweyne waxaan kaaga baahanahay oo halkan ka sheegaynaa in dadkaaga hoos u eegto oo kii gaaloon iyo kii kaleba aad eegto oo maxay hayday dadka masaakiimaha ah aad toos u eegto oo ogaato oo macnahooga ogaato oo dadka u soo diraysa dad muhiim ah oo daacad ay noqdaan ayaan madaxweyne ka rabaa waxaan doonaynaa kale Jamhuuriyadda Soomaaliland markastaba way salaaman tahay go'aankeegana way ku salaaman tahay qorbe haduu joogo haday Soomaaliland joogan inay dadkooda daciifka ah eegaan markastaba ogaadaan markastaba ya waxaan waa wax laga tagayo adduunyadan wax qiimo ah male waa wax aakhiro kii la soo baxaba oo maxay hayday u fiican marka madaxweyne Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan hooyooyinka maxaan ku raay culimadiinka maxaan ku dhalinyarada waxa weeyaan dadkooda masaakiimaha ah ee dhulka yaala ee allaha boqor ma cid kale oo weynaan jirin dadkooda in hoos eegan Jamhuuriyadda Soomaaliland maxay ka dhisan tahay haday dadkooda eegi waayaan sidoo kale hooyo kamid ah dadkaasi ku dhibaataysan magaalada oo haysata wiil maskaxda ka jiran ayaa sheegtay in ay wiilkeeda loo diiday isbitaalka dhimirka kadib markii ay awood weeday lacagta ku baaxisay daawooyinkiisa walow isbitaalkani uu yahay mid ay wadajir u dhiseen bulshada reer Gabiley gudaha iyo dibaddaba balse kooto ugu xidhan ururka Samakaal oo ah urur gaar loo leeyahay gaadhsiiyo oo hadii alla idmeeyo la cabanaya madaxweynaha Soomaaliland ayaan la cabanaya anigana weydiiyaa cid aan dhexgalo oo haysto oo kale oo qabanaysa ma jirto yaa cid la casaaltalo walaal male wehel kale male sidaasaan taaganahay waxaan hayaa ma jirto عشان أضي الله أضياني من القاهرة كابلاش كده كله حرية لو حرية لو ما حرينا نشوقنا لما غير تاسوي كجواب في كلام مالين كما أنت الله أضياني ولا واحد يشاننا كوا كاتشين قدينا وتشجعين إياه قال يا الله سوقته وعلى هذه المليون ومدى إلى دولته ومدى إلى هي دولته ayaan leeyahay garab galaan ay qabtaan ay xiraan wixii ay qaban karayaan ay qabtaan oo in badan maqnaa ilaahay dartii hanagu soo caawiya wax loo siyaana ma jiro cidna waxba uma taraso sanaya in badan waxaan 8 sano xanuunsanay xanuunkiisana dhakhtar wax lagu geeyay oo lagu tabibo lama hayo maamulka dawladda hoos loo qabtay ilaahay cabashada dadkani danyarta ah ayaa ku soo beegmaysa waqti uu maamulka degmadu ku foogan yahay ololaha xisbiyada iyo xafladaha loo qabanayo madaxda taasina ay keentay inay gabi ahaan biloobeen dadka taagta daran ee ay mas'uuliyaddu ka saaran tahay waa Cabdirashiid Salebaan Muuse Somali Cable TV magaalada Gabiley.